Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo socdaal kooban ku joogay Degmadda Afbarwaaqo ayaa dhagax dhigay ilaa dhowr xarumood oo danta Guud ah. Xarumahaasi waxaa ka mid ah saldhigga booliiska ee degmada, isbitaalka Guud, maxkamada garsoorka. Waxa uu sidoo kale uu sheegay Madaxweyne Axmed Kaariye Qoorqoor dhawaan degmadu ay yeelan doonto garoon diyaaradeed. Ugu horeyntii waxaa ku soo dhaweeyay Madaxweynaha munaasabadda dhagax dhigga gudoomiyaha Degmadda Afbarwaaqo Cabdullaahi Jaamac Doore. meeshaan oo madaxweynuhu markaan taagan yahay waxa weeye isbitaalka Guud ee waalid ee laga dhisayo Degmada Afbarwaaqo. isbitaalkaas oo boqolkiiba 65 ay isku darsadeen hay'ad la yiraahdo SSF iyo jaaliyadaha u dhalatay dalkan u dhalatay oo loo bixiyay waalid oo qofkii sadaqa la bixi kara oo sadaqa la bixiyo ayaa maanta waxaa dhagax dhigay madaxweynaha Cabdi Axmed Cabdi Qoorqoor ayaa noo dhagax dhigay ku soo dhaw madaxweyne dhammaan madaxda sharafta badan ka soo qayb gashay munaasabadan wax kasta oo lagu joogo in salaamay salaan kadib waxaan dhagax dhignay dhowr goobood oo midba ay qorshe gaar ah leedahay. halkan waa isbitaalkii Degmada Afbarwaaqo waa la iska kaashaday waa la hayaa intiisa ugu badan inta ka dhiman ma badna waqtiga loogu talagalay ku dhismaan rabnaa waxay ka dhimanaadaan ku daraynaa insha Allah. sidoo kale waxaan dhagax dhignay saldhigga booliiska reer Afbarwaaqo haday tahay deegaanka iyo tahay jaaliyada banaanka maqan waxay qaateen qaybna waxa qaatay Galmudug waana in la bilaabo hawshiisa la galo jaaliyada iyo deegaanka waxaan ku baaqaynaa qaybtiina si dhaqso ah soo baxay insha Allah. sidoo kale waxaan dhagax dhignay dugsiga sare ee Degmada Afbarwaaqo. wasaaradda waxbarashada Galmudug waxaan leenahay markaan aragnay baahida waxbarasho ee ka jirta Degmada Afbarwaaqo masaafada dheer ay jirto sida ay u mudan tahay in laga bilaabo wasaaradda waxbarashadu waxay ka bilaabaysaa waxa ugu horeeya ee waxbarasho ah dugsiga sare ee Degmada Afbarwaaqo. sidoo kale waxaan dhagax dhignay maxkamadii ama gurigii garsoorka degmada iyada waxay la mid tahay saldhigga booliiska. waa kaashanaynaa odayaasha iyo siyaasiyiinta iyo madaxda Degmada Afbarwaaqo waa ku maamulka ku heshiinay oo ku ballan qorshe inoo leedahay saldhigga iyo maxkamaduna si isku mid ah u bilaabanayaan. Degmada Afbarwaaqo oo ilaa 200 oo kiiloomitir u jirta magaalada Gaalkacyo serviceka ugu sokeeya ee dawladnimada oo Gaalkacyo waxaan siinay mudnaan gaar ah waa sida ay mudan tahay. insha Allah hawl fara badan baa laga qabanayaa waxaan qorshaha loogu jiraa inaan meel ballan ka yeelanay in la sameeyo aeroboortkii Degmada Afbarwaaqo. guddi baan u xil saaray arrintaas uu madax ka yahay Axmed Saciid Yare. inta ku aadan Galmudug gaar ahaan deegaanadan ama deegaankan iyo inta ku aadan Galmudug isaga iyo tiimkiisa laga rabaa inay ka soo saaraan oo uga fadhiyaa waa ku xisaabaynaa insha Allah. aad iyo aad ma santiin wasiiradii aan sida gaarka ah dibashiisiinta iyo wadajinta u saaray wasiirka arrimaha gudaha hogaaminaya shaqadooda u taagan yihiin garab ku siiya reer Afbarwaaqo markii ugu dambeysay aan Afbarwaaqo ma noqon doonto waa ku soo laalaabaynaa insha Allah. aad iyo aad ma santiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ugu dambeyntiina Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa socdaal dhanka lugta waxa uga soo ambabaxay Degmada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug. Xasan Cabdiraxmaan Aadan Xasan Fantastic telefishinka caalamiga Kalsan Afbarwaaqo.